kulanti waxaana wanaagsan idin lahaantiba daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan waan ka raaligelinaynaa dadkii faraha badnaa ee barnaamijka daawanayay gacanta ay kaga dhacday markaa raalli ahaada martibaad nala joogtay oo khadka ninba ku jira warbixinna siinayay waxaan jecelahay inaan dib ugu noqono dhammaantiin waan idinka raaligelinaynaa taas iyada soo dhawaada dhammaantiin barnaamijkeenii baan dib ugu noqonaynaa si aanan uu talagalahayn bay gacantay kaga dhacday marka waxaan doonayay inaan wax saxo marka waxaan arkay un anoo finishkii taabtay raalli ahaada aad baan idin salaamaya soo dhawaada dhammaantiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan sidaabaad alaa sidaad nooga barateen gacanta igaga dhacday marka waayahay marka gacanta igaga dhacday barnaamijkiina wuu baxay raalli ahaada haddaan ku noqonaynaa xilligan oo kale waxaad nooga barateen inaan idiin soo gudbino hadba wixii xog ah afmeer soo gaadha danta ama xilligan sababtaan u fadhino haddayna waxa weeyaan dadka dulman gumaysiga ku jira in aan cod u noqono oo gaadhsiino insha allah wixii intii karaankeena marka soo dhawaada dhammaantiin aada iyo aad baad maarata ugu mahadsantihiin daawadayaasha qadarinta iyo qiimaha mudan ee nala socda ujeedka ugu weyn ee barnaamijyadeena waxa weeyaan waad ogtihiin xilliga adkaa waan kasoo qayb qaadanay haddii aan dib ugu noqdo warbaahinihii jiray ee soomaaliyeed waxaa gacanta ku dhigay TPLF si aan baahida uga baxno ayaan u furay afmeer saas danahanina intii badneed waa ku gaarnay marka soo dhawaada barnaamijkeena caawa wuxuu ka koobnaanayaa sidaad warbaahinaha kala socotaan ama guuxa jira jawhar maxamed ayaa aada u liita xaaladiisa caafimaad isagoo xabsiga ku jira isagoo fayow ayayna xidhay dowladdani arrintaas iyada ah aada iyo aad bay caawa u kacsan tahay warbaahinta haddaad fiiriso xagga xabashida iyagu maaragtay siday ay dhoolaha uga qoslayso ama maaragtay qoraalada samaynayaan xagga oramadana waa maaragtay runtii arrintaas waxa weeyaan guux badan baa ka jira oo aada iyo aada u culus waxaan jecelahay mar kale inaan soo celiyo muwaadin u dhashay waddanka oramada oo barnaamijkan igala qayb qaadanayay oo haddii uu khadka kusii jiro inaan isagana in yar ka dhageysano warbixinihii ugu dambeeyey dhanka kale waxaad la socotaan etoobiya shalay iyo maanta khaasatan oromiya shalay iyo maanta isniintii laga soo bilaaba galabnimada isniintii iyo maanta oo arbaca ahayd arrin aada u inkaaran baa ka taagan oo maaragtay aan waxba la isula hadhayn oroma jidadkeedii bay xidhatay dukaamadii bay xidhatay etoobiyana waxay ciidan lahayd ayaa halkaa ka howlgelaya khasaaraha dadka shacabka ayaa sii kordhaya oo khaasatan 4 gobol ayaa waxaa leeyahay dadku aada iyo aad bay maaragtay u badan tahay dhimashadu dhanka waxaan ka hadli doonaa doorashada ka waddanka gobolka Tigray oo xilligeedii say sheegeen dhacaysa waxaa naloo sheegay deegaanada oroma Tigray in dhammaantood kaarashiis diiwaangelinta dhammaan la geeyey halkaas goboladaas oo dhan ololihii doorashada socday ee 4 xisbi ee ka kooban Tigray saad la socotaan arrintan waxay ka dhalatay oo TPLF hadda tallaabadan ay qaadayso dowladda hadda Addis Ababa ka jirta waxay ahayd doorasho ama lagu heshiiyey iyagii asxaabtii kale inay bishan August 29 doorashada guud ee Ethiopia dhacdo waxaa afgambiyey dowladda hadda jirta doorashadii way baabi'iyeen iyo isbeddelkii iyo dimuqraadiyaddii iyo wadahadalkii socday ee maaragtay wada noolaashaha gebi ahaan meesha waa laga saaray hal Ethiopia iyo xoog doorasho ma jirto Ethiopia 30 September bisha nagu soo fool leh waqtiga baarlamaanka Ethiopia wuu dhamaanaya muddaxileedka baarlamaankaas wuu dhamaanaya inkastoo ahayn baarlamaan la soo doortay waa la soo ururiyaa kan federaalka Soomaaliyeed dhaliisha badan dadku ay u hayaan kaasaa 100% 90 kaasaa ka fiican maxaa yeelay marar badan bay wax u daneeyaan marar badan bay wax diidaan marar badanna waa la marsadaa kan Ethiopia isagu waa igu shubo yacni waa gacanta taag
shanta boqol iyo afartan waa 540 iyo waxoogaa hadday 20 timaado kooramku wuu buuxaa baarlamaanka Ethiopia 20 hadday timaado kooramkii wuu buuxaa baarlamaanka Ethiopia waa noocaas marka waqtigii baa ka dhamaanaya doorasho sidaba dastuurka Ethiopia waxa la yiraahdaa waxa ku qoran intayna doorashadu dhicin bil ka hor doorashadu waa inay dhacdaa muddo xileedka baarlamaanka intayna dhamaan marka August doorashadu inay dhacdo September la dhaariyo baarlamaan cusub October marka xilligii prime ministerkii macnaha waa markii lagu dhawaaqi lahaa arrintii marka aad iyo aad bay u adag tahay doorasho Ethiopia ma jirto Tigraygana waxay ku adkaysanayaan xilligii hore lagu heshiiyey loo asteeyay baan yidhaaheen waan qabsanaynaa marka aad iyo aad baad moodaa inay runtii ay u sii cakrimayso xaalkan Ethiopia dowladda maartay hadda Addis Ababa ka talisa shalay waxay la kulantay cuqaasha Oromada ama salaadiinta wuxuu weydiistay Abiy Ahmed inay guryaha ku celiyaan dadka kacdoonka wada iyo dhalinyarada jidadka xidhay sana loo sheegay goobta manaan joogin laakiin waxay ku yidhaheen horey baan u wada hadalay dadkaas waxay diidan yihiin waynu ka wada hadalay ma celin karo anagu haddaydaan celinay wuxuu yidhi tallaabaan qaadaya oo tallaabo u hadhay ma jirtay ku yidhi tallaabo u hadhay oo aad qaadaysaa ma jirto adeer marka odayaashii Oromada iyo Abiy Ahmedna way shalay way ku kala tageen arrinta jawhara waa tan oo jahawareer kala soo kordhay caalamku kama yeelayo nin dhalinyaro oo fayow oo la xidhay yaa xabsi ku dhac waxa leeyahay xanuun baa haya marka waa culays kale ku yimid Oromadiina markay maqleen arrintii baasin bay ku sii shubtay arrintii okay waxaan soo noqonaynaa arrintan kacdoonka isniintii soo bilowday ama mudaharaadadan waxaa la soo sheegayaa khasaare yacni intii ay Tigraygu joogeen hal maalin marka laga bedelo maalinkii meesha Addis Ababa agteeda godadka ay ku daadanayeen maxay ahayd Iraaja marka laga reebo shalay iyo maanta waxa dhacay waliba maanta iyo shalay maanta waliba la sii sheegayaa iyo shalay daraad oo isniintii galabtii ahayd dhacdadu way soo bilaabatay laakiin labada maalmood ee ugu dareyd waa shalay iyo maanta yacni geerida inta la sheegayo cadad ma laha anigu waxaan arkay ma soo gelin halkan laakiin yacni waxaan aragnay runtii wax caadiya ma aha dadka la duugayo la wado aad bay u fara badan yihiin marka taliska Addis Ababa ka jira ciddiyuhu ku dagaalamaya qoladan jidadkoodii iyo waddankoodin bay xidheen marka waxa weeyaan waa firigtii ugu dambeysay weeye hadda maxaa la isku hayaa waa doorasho ha dhacdo Oromadu waxay leeyihiin doorasho xor iyo xalaal ha dhacdo dalkana waa federaal ku dhisan nidaamka qowmiga ah doorashadii xor iyo xalaal hadday dhacdo gacanta kuwa hadda Addis Ababa xukuma gacantooda waxba kuma jirayaan sidaa daraaddeed ayay uga takhaluseen nidaamkii doorashadii way burburiyeen madaxdii Oromada matal lahaydna waa la xirxiray sidee markaa wax lagu qaboojinayaa sideed ku xukumi meeshii ku fadhiyaysaa kursiga macnaha markii hore waxaa la islahaa marinaya haddii jawharkan lagu tuuro kuwa kale maartay activistiyaasha Oromada Canada iyo Mareykanka ka yimidna la xidhxidho idaacadda TV-gana maartay Addis Ababa qaybtii ay ka furteen la xidho Oromada 2-3 toddobaad bay iska mudaharaadiyaan marka arrintu way iska dhamaan doontaa
kaafiya kale dheer bay ku noqotay laf dhuun gashay waxaa noo sheegay jawhar xanuunkiisa hadda inaan la caddaynin shaki badan uu ka jiro shaki badan inuu ka jiro maanta markii ay taliska Addis Ababa ay weydiisteen dhakhtar baa lagu geyn wuxuu yidhi dhakhtar haddaad i geynaysaan waa in dibaddan ka dalbanaya dhakhaatiir idinma aaminayo haddii waxaa la yidhi waa lagu daweynayaa haddii aad la hadasho oromada oo dejiso tiraa guryaha ku laabta wuxuu yidhi xorriyaddooday u dagaalamayaa soo maaha anna halkan waxaan ugu jiraa maxbuus baanahay marka maxbuus wax dejiye meedaa la arkay marka arrintu waa isjiq bay isku tahay arrintii jawhara culays kale ku noqotay abiy axmed xaaladiisa caafimaad hayntiisii 40 malyan ee waddada taagan jiq bay isku tahay lama saadaalin karo daawadayaasha qadarinta mudan waxa ay Ethiopia ku dambeynayso waxaan rabnaa bulshadeena inay ogaato Ethiopia ayuu waddankeenu gacanta ugu jiraa guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna waad ogtihiin faragelinta ama lugta ay Ethiopia ku leedahay ilaa dalka xorta ay Djibouti meel ay Soomaali maamulo ka jiro ama dawladda ka jirto iyo intay haysataba meel kasta Ethiopia qof kasta Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn bay ku yeelatay sidaa daraaddeed waa laga maarmaan inaan dul istaagno xaalkeeda iyo meesha wuxuu marayaan okay waxaan isku dayayaa inaan ku laabto muwaadin Oromo ah oo khadka ku jiray goordhaweyd haddii uu soo jeedo xilli dambe u tahay waaye mudane raalli ahow barnaamijkii inagoo ku jira ayay hawadu ka baxay gacanta ku dhacday waxaan jecelahay inaan ku siiyo 5 daqiiqo oo maaragtay warbixina aad inoo soo gudbiso adoo mahadsan waad mahadsan xamso bahashi anigu hadlaya baaska go'aad ma kaaga tabka ka dhamaaday anigana xagga kale gacantayda kaga dhacday umaba ana socon gacantayda taa umba ku dhacday ilaahay markii qadar Allah waaye haye markii xageen ka bilaaba bal wax su'aal aad leedahay mise waan soo koobaynaa ama adigu adaan ku siinayaa isniintii galabnimadii isniintii waxaa soo bilowday mudaharaado iyo jidadkoo la xidhay Ethiopiana jawaab bay ka bixisay iyo xaalka jawhar intaas labada qodob baynu ka hadlaynaa marka iswada raaci insha Allah haddaan ka bilaabo xaaladda qayro ayaa soo bilaabatay maalintii isniintii gaar ahaan mudaharaad iyo wadagooyin baa isku dhex jiraan dhaawac iyo dhimashaduna waa badan tahay dowladuna waxaa tiraahday markii wadada aan lacagta u baxayn oo aan dhisnay haddii idinkuna goysaan anakanuna idin dilno waa sharci ayaa ogolan markan qayruna waxaa tiraahday anakana cidda dhimatay lama xisaabtamayno cidda noosha kaliya ayaa hore soconaysaa marka xaaladda sidaas dhan walba u socotaa dowladuna sidaas oo qirtay maadaama ayaguna wax ayagu maanta hadda qaban karaan haba yaraatee ma jirto dowladdan hatan meesha ku baxsan karaan sidii Tigreegu kale Tigreegu markiina dhibaateeyeen kadib markii laga kaxayay Soomaalidu ama Oromada markii laga kaxayay maqalli baa aaday kuwan hadda meesha ayagu aadi karaan haba yaraatee ma jirto kaabineesha malaayiin ayaa meeshan joogta gurigooda waa halkan laakiin haddii aatan maxaa lahaa ku burburaan ma badbaadi karaan sidii Tigreegu kale saa darteed ayaa iyaguna waxa rabaan cid walba waxa garanayso ama dadka cayn kartaa kuwii activistiyaal la xiray ama siyaasiyiintu dhan la afduubay kuwii xarina in la dabaraaciyo waxaana gabdhaha iyo duqeyaasha kaliya meesha laga tago oo cidna ka awood roonaan ayaa dowladda u fikirtay marka dowladuna cid walba oo maxaa lahaa wax garanayso dhan inuu talaabo ku qaato inta doonto xidho inta doonto disho ayaa meeshan u badbaadi karta ayaa
استراتيجية يجو كاسويا جارهان حالده واسكو قسنت هاي وسعوتا أرنتو سيداس أيا بدنتا جارهان حالة غيره واسيز عندنا قرط لمن دنتو مقرنينو لكن ولي وسعوتا دنك كلا إتي جوار وحنوسي هاي markii xaaladiisna meel culus baa maraysaa haddan 90% waxaa laga yaabaa inuu dhinto ayaa laga yaabaa markii dawladda waxtaasna shaki lagu qabo inaa dawladda wax sun oo kale ku buufisay maaha wax lagu buufiyay meeshii ay isagu joogo lagu buufiyay oo hawadu noocaas u qaatay ayaa lagu shaki qabaa dawladna waxay tiraadeen haddii aad shacabka dejisaan waa ku xakameynaa maxal dhakhtarada dalbatay waad helaysaa markii shacabka naga deji asaguna waxa jawaabay anigu waa nin maxaabis weeyaan nin maxaabis sidee aan dadka ku hadli karaaba sidee aad u fikiraysaan wax nooca naga joojiya marka anigu inuu dhinto ayaa ku dhow inuu aan shacabkan dejiyo shacabka xorriyad doonayo markii taasna waa sidaas ayaa jawaabtii iyo su'aala dhaxmartay dawladda iyo dhanka asaga tan kale wuxuu dalbaday in wiilkiisa iyo xaaskiisa la tuso intii dhimanin ka hor joogaan waddanka Mareykanka markan xaaladiisa meel culus baa maraysaa markan ciidamadan dawladda hatta markii maqleen markaas uu xanuunsado dhanka xaaladiisana meel cadan oo gaadhana ciidankuna waxaa la sheegayaa in haddan dhaqdhaqaaq ciidanku inuu kala jabayaan ama dagaal ma furi doonta maadaama haddii ninkan uu dhinto dagaal baa furi doontaa ninkan abiyuna ma rabo inaan ninkan asaga nool meeshan ka baxo waxaa baqaya in haddii meeshan ka baxo kunka la wareego kadibna argos ku sameeyo maadaama asaguna wax badan haddan maxaa laga shaki maxaa hore laga sugin oo sameeyay darteed ayaa haddan asaguna baqanayaan markii ninkan haddii dhintona waa dhibaato kale sii kordhaysa ciidanka haddan dhaqdhaqaaq bayaa la sheegayaa haddan anigu haddan qof ciidankan dawladda ka mid ayaa saaxiibanahay ayaa wacay markii haddan waxaan diyaar garoobeynaa dhahay haddii ninkaasu dhintay inuu dadkii oo federaalka nimada aaminsan iyo dadkii Itoobiyaanimada aaminsan inuu ka dhaxqaqi doono oo dagaal noocaas ayaa diyaar garoob lagu jiraa maalinta shalay ka bilaabay maanta haddan ina ciidanku fursadda raadinayo haddan xaaladaas baa ku suganahay dhahay markii gaar ahaan abiyuna waa nin haddan wareersan markii asaguna uu dareemay ina dhaqdhaqaaq noocaas ayaa ciidanka ka jirta uu dareemay marka asaguna waxaa dalbaday shalay ayaa dalbaday inuu salaadiinta oromada ka qabtaan dhalinyartan haddan kacsan marka aruutiina naga dejiya haddii naga dejiyo waataan ba ciidan ayaan kusoo daayi doonaan marka iyaguna waxaa dhaheen hore aan ku dardaaramnay xaaladan adigu dalbatay inuu xilligan soo gaadho marka waxaan aad dalbatay adigu ayaa sii wadan doontaa laakiin awooddaad hadda sheegayso aad wax kale ku harsan haba yaraatee ma jirto waxa ugu harsan inaad xalka soo dayso kaliya taas haddii aad maxaa la awooddaada aad sheeganayso inuu xalka ka digto waa taas waan aqbalaynaa laakiin wax kale aad ka hor aad maanta ka hare aad sameynayso haba yaraatee ma jirto waxaan ka badan adigoo samey kareenin bal hawshaada wado arrintaas sidaan weeyaan gaar ahaan dhan walba waa isku qasan yihiin markan abiy dhanka kalena waxaa baqayaan caalamku shalay qoorta geliyey Nobel Peace bahashi nabadda qaatay maanta fashilmayo marka gaar ahaan ninkan dhanka kale caalamkuna wax ka sugaynin baa haddan ku jira asaguna nin hore hooyadiisu sheegtay inuu yahay boqor haddana waxaa isku dayaya in maxaa hadafka hooyadiisa uu fuliyo wax asagu wada iyo meesha dalka ku soconayo adeed isbarbar dhigto wax isla maaha wax kala duwan oo wada marka gaar ahaan xaaladan Ethiopia hore laga sugay oo aftiimi
gabi doonta oo maxaa la isbedelkii laga sugay uu leexday haddan mugdi ayaa meeshan ka muuqataa waayahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay si fiican baad u faahfaahisay marka dhanka kale jidadkii may xidhan yihiin mise xaaladdu jidadkii way furan yihiin hadda waddanka oromada iyo etoobiya inteeda kale jidadka horta dowladduna inta awoodayso waad isku dayaysaa inuu furto gaar ahaan waxaa la isticmaalaa baaburayaasha oo waddada xaaqayo ayaa baa lagu isticmaalaa meesha dhagaxaanta la dhigay waxaa noocaas waddada laamiya waxaa kale jira waddada laami ahayn oo buundada lahayn la mari karin ayaa ugu badan ayaa xaaladooda jiran oo isku xiraa degmada iyo maxaa lahaa gobolada ama magaalooyinka isku xiraa kaasina la xirxiray gaar ahaan buundadiiyo qaar sidii baabuurta mari karin baa la gooyey gaar ahaan adigu dhaqdhaqaaq ma jiro maadaama dadki uu qaarna dowladda baqanayaan gurigu isku gelaya dadka gurigu gelaya waa dowladda waa furaysa waa soo saaraysaa haddii dowladda soo saarto qaar baa mudaharaadaya kuwii mudaharaadaya cid walba waa wada lahay markin xaaladdu haddii waddada haddii furan yahay ciddi dhaqaaqno ma jirto tallaabo dowladda qaadayso tallaabada dadka la ugaarsanayo weya dadka haddii aad ugaarsato wax maxaa lahaa meeshaan haddii nabad ka jiro adigoo dad ugaarsanayso ciddi shaqaynayso ama wax waddada marayo haba yaraatee ma jirto waddada haddii xidho haddii aad xirin maxaa lahaa waxaad calaameynaysaa keliya inuu maalintan iyo ilaa maalintan waddada la xiro baad ayaa dhawaaqaysaa dowladda tallaabo qaadaysaa cid walba baa guriga waa isku xiri marka kuwii haddan amarka la siiyey oo kuwa la amriya ayaa wada meel baad galay marka waddada ciddi marayso ma jirto gaar ahaan magaalada waaweyn oo gudaheeda oo maxaa la dowladda awood ku leedahay ayaa dhaqdhaqaaq ka jira ama dowladda tusayo markii xaaladda iska ururto xaaladan noocan haddii aad dhacdo dowladduna waxaa diyaarisaa laba magaalo oo markasta wareysi ka qaata oo maxaa la bajaajkii iyo dadka soconaya ayaa diyaarisaa dharka telefishinka kaas baa la tusaya intu kale waa la xakumay qadkina waa la gooyi intu kale waa la isku dhaafi ciidankeeyo shacabka waa isku daynay laba magaalo iyo saddex magaalo ayaa hadda la tusaya inuu furan tahay in la shaqeeyo wax noocaas ayaa waayahay caaw waxaa naloo sheegay waad mahadsantahay caaw waxaa naloo sheegay dhulkan shaawa la yidhaha gobolada adhisaba ku hareereysan inay xaaladdu aada u kacsan tahay laakiin maalmihii lasoo dhaafay gobolada kale oromada ay ka duwanaayeen gorweyd baa naloo xaqiijiyey oo layidhi aada iyo aad buu u kacsan yahay xaalka goboladaas ethoobiyan waxay geysay ciidamo fara badaan bay waddooyinka geysay maanta aad soo gelisay ood sheegtay inuu maxaa la goboladan oromada horta gobolka oromada sida aad sheegtay kale 9 gobol ma aha waa 22 gobol weeyaan laakiin dhanka galbeedka ayaa gobolada 9 gobol ayaa dhanka galbeedka ku jira intooda kale waa goboladan shawa iyo shawa waxaa ka kooban tahay ilaa 5 gobol weeyaan walagana waa 4 gobol weeyaan jimma iyo kuwa kale gaar ahaan 22 gobol weeyaan oromia haddii aan isku duduubno 9 ma naqaanaa ma aha 9 gobol baa xagale haye dhanka naga 9 baa soo xigta 9 ma naqaanaa haye 9 gobol ma aha 22 gobol weeyaan laakiin waxaa la sheegaya waxaa la tirinaya dhalashada dadka la fiiriyaa dhalashada haddaad fiiriso waxaa noqonaysaa 11 gobol baa noqonaysaa laakiin kaas waxaa ku dhisan qowmiyadda waxaa weye aragga haddii aad fiiriso waa qowmiyadda weeyaan laakiin gudaheeda waa 2 gobol weeyaan shawa haddii aad fiiriso waa qowmiyad weeyaan laakiin 5 gobol weeyaan walaga haddii aad fiiriso waa 1 gobol weeyaan hal qoys baa degan laakiin 4 gobol weeyaan gobolada walbo haddii aad boorana iyo guji iyo waxaan haddii aad tagto laba gobol isku dhex jira laakiin guud ahaan haddii aad fiiriso qowmiyad baa lagu tiriyaa sidii aad u tilmaamto aad tilmaamayso waa sidii qowmiyadda weeyaan gaar ahaan anaka oromo waa magac anaka wada leenahay laakiin waxaa jirta qoos iyo qabiilada waaweyn isku dhex jira qaar
5 gobol ay ku kooban yihiin qaarna 4 gobol baa ku kooban yihiin waa qabiilooyinka weeyaan kaas ku yaad haddan sida waayahay marka tan arrinta shawa haddaan isku dayo su-aalkaaga arrinta shawa roob badan baa daayay marka roobku daayeen ayadinka iyo maxaa lahaa wax walba dhagaxa baa qabsaday marka kayruna waa ka faa'iidaysatay wadad wax walba waa goysay meelaha biyaha baa ku furtay marka roobku daayayo oo biyaha baa ku furtay baabuurka kii xagga soconaya kii dhankan soconaya oo ayaa markii isku laabteen gaar ahaan wadad iyo wax waa isku qasan iyo biyaha markii aad akran weeyaan markii dowladana ciidanku fara badan ayaa saa darteed u geysay maadaama roob iyo kacdoonkii isku dhexdarsameen dadkii kacdoonkina roobka faa'iidaysteen oo meelaha qaarka meelaha webigii oo dhan markii biyo mareen inaad goyso waa arrin fudud weeyaan markii saa darteed ayaa dowladda ciidamada badan u geysay wax noocaas ayaa ka jira waayahay waqti miyaa u xadidan hadda arrintan macnaha bannaanbaxyadan cusub ee hadda socda maalinka saddexaad in la joojinayo arrintan hadda taagan macnaha soo bilaabatay galabtii isniintii ma sidii maalmihii hore 5 maalmood socon mise waa waqti ma laha wallahi waqti ma laha maadaama dhimasho dhaawac baa isku dhex jirtaa laakiin waxaa la rabaa in inta la awoodo ama maxaa la istaraatiiji iyagu socoto in la wado kadibna maxaa la bahashi la sheego maalinta oo maxaa lahaa maalintii ay dhammaanayso maadaama taas waxaa la tusayaa dowladda haddii aan siino maalin 5 maalin haddii aan siino 5taas maalin ayaa awoodda saaraysaa intooda kale waa nasanaysaa markii haddii aad maalinta sheegin dowladda markasta waa diyaar garoobaysaa baabuur baa dhaqaajinaysaa dhaqaale badan baad furaysaa dad badan baa jaajuus badan baa la diraya markana anagana waxaa faa'iidaysanayaa in dhaqaale badan dowladda ku buuxiso maalinta la garanayn dowladda diyaar garowdo bil oo kale marka saa darteed ayaa xaaladda lama sheegayo waxaa soconaysaa muddo kooban baa soconaysaa laakiin isbuuc baa noqon kartaa laakiin ma sheegin maadaama in dowladda dhaqdhaqaaq badan baa samayso ayaa laga rabaa marka dowladdan haddii aan waqti dheer aan samayno ama gaaban aan samayno haddana xaaladan bil baa soconaysaa ama wax bil ka badan ayaa soconaysaa dowladda Ethiopia haddii barwaaqada oo tahay ayagu haddan maxaa la ururkan hadda dowladda sheeganayso barwaaqa lahaa Soomaaliya waa sax marka haddii barwaaqada ayagu sidaanu tahay sidaan baa waddanka ku maamusho anaka markasta baan waxa noocan ayaa wadayna habeeniyo maalin wadada ha taagnoodaan albaab hortiisa ha taagnoodaan suuqa la ilaaliyo markii ciidanka dhaqaajiyo marka xaaladdeena mashquul weeye arrintan sanad haddii socoto dowladdan Ethiopia tan hadda jirto iska dhaafitan soo socota hadda waxaa baqaysaa in tan oo kale ku dhacdo waxaan waa inaa maxaa lahaa tusaale ka qaadato markin xaaladdeena wax maalin ku saabsan maaha sanad iyo 2 sano iyo 5 sano haddii socoto hata dhibaatada noocaan anaka waan wadaynaa dowladda haddii awoodda leedahay ha wado hawsheeda aad iyo aad baad u mahadsan tahay waqti dambe kuu tahay marka waan ku fasaxaynaa waad mahadsan tahay waayahay ninkaa waqti dambe xilli dambe ku jira annaga laftaada hadda 11 baa ku soconaa marka soo dhawaada dhammaantiin barnaamijkan iyadoo dad aad u fara badan daawanayo ayaa gacantu igaga dhacday dib ayaan barnaamijka kaga soo noqonay marka sidaa inaad la socotaan soo dhawaada dhammaantiin ujeeddada aan ka leenahay keliya in uga hadlayno xaaladda Ethiopia ka taagan waddankii aan ka nimid waxaa gacanta ku haya Ethiopia gacanta ku haysa gumaysata dal xora maaha iyo dad xoratoona sidaa daraaddeed dadkeenu inay ogaadaan gumaysigii Ethiopia meeshuu marayo inay ogaadaan waad aragteen dadka Soomaalida inta badan arrimaha hoose iyo shakhsiyaad waa nin shakhsi taageeraya siyaasiya iyo nin arrimaha hoose uun ku mashquulsan inagu waxaan door bidnay kaafmeer ahaan hadalka waxaan wadan leeyahay dad badan baa jira oo maaragtay aan aragnaa ama commentigooda ama kuwa nala soo xidhiidhayba arrimahan Ethiopia markaan ka hadlayno macnaha haddaad China ka hadasho
oo maalin walba China ka hadasho ku Soomaaliya ordaya ku soo gali marka waxaan xusaa waagii TPLF joogtay aan bilowna barnaamijyada siyaabo kala duwan baa naloo soo weerari jiray marka danta aan leenahay waxa weeye dadka aan codka lahayn ee la dhibaateeyey la xasuuqay barnaamijka hadda aan duubayo cid aan daawanaynin dowladaha waaweyn ee kuwa yaryartoona ma jirto waa xaqiiqa qof kasta oo hadlaya oo barnaamij ka hadlaya qadiyadeed ama ka hadlaya arrin xuquuqul insaan ama arrimo kale ka hadlaya oo dad iyo maaragtay fawda ah dhinaca dooniba ka hadal dhinac wanaagsan dhinac xun intaba barnaamijkaaga waa lala socdaa waa inaad taa ogaataan marka waxaan rabnaa inaan iska aamusno inayna fiicnayn qadiyadeenii ay taagan tahay etoobiyana ay ogaato dadkii inay weli codkoodii ay maarata kursiga qaadayaan xuquuq badan baa inaga maqan dalkeenni waad ogtihiin etoobiya marka la yidhaha baa caalamka ku ogyahay oo xayndaab loo geliyey dowladdeena halkaa ka jirta iyo maaragtay dowladaha kale ee gobollada kale etoobiya maarata ay maamusho ka jira isku xuquuq ma aha 12 milyan oo Soomaaliya oo khayraad leh oo culays badan leh oo very stronga haddana in ciidanka waddankeena lagu soo badiyo madaxdeennana mar walba culays la saaro waxyaabo badan lagu saaro xaqiiqada dhabta ee jirta marka Ethiopia waxaa la yidhi waa ismaamulkaagii laguguma daynayo ceelasha shidaalka waddankeena ruux Soomaali oo tegi karaa ma jirto aniga waxaa la ii xaqiijiyey inay isku dayeen maaragtay intii hadda isbeddel ku dhacay dowladdan 3 jeer inay isku dayeen inay maaragtay Ethiopia kala hadleen aan loo soo jawaabin xaqiiqo dhabo wey 5,000 baa ka shaqeysa shidaalka 40 dad lagu sheegay baa Soomaaliya oo shaqaalaha hoose Bitonia inta kale waa Ethiopian iyo Chinese sidaa daraaddeed ayaan uga hadlaynaa xaalka Ethiopia oo mar walba aan bulshadeena ugu iftiiminaynaa oo aan ugu mashquulsannahay oo aan wax kale ka hadlayn waa arrin ku saabsan xuquuqda aadanaha xorriyad dadkeenni ma haystaan iyo dalkeenni marka inaan ku mashquulo shakhsi Soomaaliya waxaa iga fiican inaan ku mashquulo aniga xabashadaas iyo maartay Ethiopiadaas marka xaalka Ethiopia meeshaasu maraya waxaa la idinka rabaa inaad midnimadiina xoojisaan dad ummad aad noqotaan isku xidhan waad soo halganteen waddankiina waad difaacateen dhaqankiinii iyo diintiinii iyo haybadiinii karaamo iyo sharaf baad leedihiin iyo culays fara badan markii la soo gaadhay meesha ugu fiicnayd ee halgankii keligaa aad ku ahayd uu saaxiiba yeeshay maanta oromaa dagaalamaysa walaytaa dagaalamaysa sidaamo TPLF baa xaggaa fadhiisatay marka soo ma aha waagii waxaan garanayaa aan Yurub oo dhan soo mari jiray shakasho weligeed ma maqasheen qolooyin yaryar oo 200 kun dadkoodu ay ka yar yihiin yaanu raadin jireen UNBO ka registraynay Roma waxay dadku moodayaan inay kacdoonkan Ethiopia iska bilowday oo maya ummadan juhdiga ay soo gelisay in Ethiopia wajigan ay yeelato tikraagii baa la isu dhaartay waxay yidhaheen aayara kaale waddankiina iska imaada waxa weeyaan qurba joog baati markii Nairobi la tagay dadku dhan way ogyihiin adduunyada hadda wadamada galbeedka wixii laga soo tagay dhowr sano kadib waa la sheegaa markii wixii laga soo tagay oo caad taariikh ba ahaan baa looga sheekeeyaa waxaa lagu yiri Tigrayow dad yar baa tihiin 100 milyan haysataan yaanu anaguna kicin meel aad saldhigi doontaan ma jirto iyo waayahay 2017 Dubai dad badan baa ka hadla
iyagoo kabaha madaxa ku wada yimideen waqti yar baan u harsanaa. waxaan ula jeedaa juhdigii intaa la ekaa maaragtay qoomiyada inaan hela garab. dalkeeni soomaaliya buu noo weydaartay ninka la yidhaha meles, xaggaasuu nagaga yimid. kanay soo qabo kan qabo, waddankii o dhan jaajuus meel istaaga ma leh. qaniya kaafujida ayay soomaalidu tidhaa. isagu meeshuu u gudbay xamar, isagana waxaa loo dabamaray gudihii. marka waxa weeyaan ninba dhanu badi wey. iyagii bay la degtay tigraagii, iyagii baa daad ku qaaday. maanta waxaa nool oo xayi ah oo iftiin maaragtay xilligan iftiinku usoo baxay oo ifafaalo fiican uu u muuqdaa shacabkeenna. kuwa guulaystana waa iyaga. maxaa yeelay xooggii etoobiya keligeen na baabi'inayay, maanta keligeen ummado badan oo kale iyuu ku mashquulsan yahay. weligaa ma islahayd oo ma ku fikirtay etoobiya soomaali unbay un isu soo urursataa, laakiin weligaa ma islahayd 150 furmood baa etoobiya dhexdeeda caloosheeda kaga furmaysa. ma islahayd. waxaasoo dhan juhdi badan baa la geliyey, waqti badan bay qaadanaha laga sheekeeya. haddii la yidhaah qadiyadan waxa weeyaan waa qadiyad runtii meel fiican maraysa. waxaan dadka usoo jeedin lahayn, qofkii wax qoraya ama qofkii hadlaya inuu ku hadla samaan, kii kalena uu bulshada ka aamuso. haddii la yidhaha berrito baa afti la qaadaya, qaar baa ka hor iman doona. lama waaye ku soomaaliya ka hor yimaad. maxaa yeelay saansaantii baan hadda waxaan aragnaaba, inkastoo ayna cod dada ahayn, haddana waad arkaysaa. xaalka etoobiya meeshaasu marayaa. waxaan u baahannahay bulsho midaysan, dhinac u wada jeeda, garab isu ah. dadkan waa dad wada dhashay oo ehela. marka taas kaga baxaya. berrito haddii la yidhaa yaynu xogaha ugu dambeeya helaynaa. hadda internetka ka go-an. dhulkii warka laga helayay ee oromada khad ma jiro, adeega internetka wuu maqan yahay. maxaa yeelay xaaladda aada iyo aada u culus. waa la isku farxashay sida naloo sheegay. awaday shashamane, buraayo, dhulka baali iyo mataqaanaa maxaa la yidhaahaa arsi iyo ilaa walaga dhulka laga gaadhiyo. anuu hadda 9 gobol baan yaan oromada u naqiinay. hadda waxaa naloo sheegay waa 24. marka 9 show waa intan innaga ina soo xigta. marka insha allah waxaan rajeynaynaa guriga gobonimo aan rajeynaynaa. xaaladuhu saasay u cakra yihiin. dowladdii etoobiya ee ku-meel gaadhka ahayd doorasho inay gaadhsiiso 2020 ay ahayd bisha agost. doorashadii waa taa cagta marisay. doorasho ma jirto. meelay wax ka qabato caawa iyo midna ma jirto. magaalada Addis Ababa biyaheedii loo cabsanaya. hadda biyaheedii baa loo cabsanaya iyo adeegeedii. marka waxaan rajeynaynaa arrimaha badan baa laga soo sheegaya Addis Ababa, waxyaalaha ka dhacay. hadda annagu ma hubno, laakiin halka kama sheegayn. waxaan hubno maaha. marka guud ahaan diyaar garooba, qadiyadiina garab istaaga, una heliya dadkiina. ummadahan kale ee dariska nahay, maaragtay isku halganka nahay, iyagana hala nabadgeliyo. wixii lagu taageeri karna ha lagu taageero. halgankay ku jiraan waa halgankeenna wey. xaqiiqada dhabta asaas wey. waa ninka hadda oromo ka soo adkaada, adiga cana miyuu ku siinayaa. barnaamijkeenii kan ka horreeyey waxaan ka hadalnay. markii hore waxaa doodu ahayd federaalkan qowmiga ku dhisan ee dowladdan hadda jirta iyo amxaaradu diidanayeen. arrintu way ka durugtay confederal. arrintu way ka durugtay.
xaqiiqada dhabtaan idiin sheegaya haddiiba etoobiya dadka shucuubtaas iyo nidaamka haddii la yidhaha hala wada hadlo qodobka meel la ku qoray intiina haddii aan nool lahay federaalkan qoomiga ahe aan dadku ay ku dheganaayeen ee lahay war annaga ismaamulayna luuqadanadaan wax ku baranayna xakaa naga jooga ee lalaha maya hala calanay hal luuqada ka durugtay hadda I think the Canada iyo wadamaha confederation soo maha confederal dhowr wadan baa akale calankaas waxaa laga yaabaa wax badanba kama dhexeeyaba statekii rabana wuu bixi karaa qodobka hadda oromada iyo hadda fiiri TPLF iyo mataqaana qoomiyada fara badan waxaa la taagan yahay keliya haddii wada hadal imanaya Ethiopia waxaa lagu wada hadlaya inuu noqdo confederation non mataqaana federaalki ethnic federalism may waa baasha waa lasii durkisanayaa hadda halkaasay maraysaa karre ka darbee dhashaabaa la yidhi way uga dartay caawa xaaladdu siday ku tahay abiye iyo kooxdiisa waxaan u malaynayaa dadku inay ogaan ay qiyaasi karayaan xoog iyo ciidan shacab laguma muquunin karo laakiin waxaa lagu muquunin karaa siyaasi ama waddan baa talis ku afgambiyi karaa laakiin shacab kacay ciidankan shacabku ka yimid hadda wiilkii wuxuu noo sheegaya oramada barnaamijkeena qaybta ka ahaa warbixintana siinayay wuxuu la hadlay askari ay siqaanaan si gaarana uu igu soo sheegay private askartii baa waxaa u socda go-aan inay qaataan sidan hadda Ethiopia u kala qaybsan tahay federaalkii iyo ugu kala qaybsan tahay waxyaalahaas ayay tana saas ugu kala qaybsan tahay waad mahadsan tahay Switzerland waa saas oo kale la yidhi waa confederation la qayba Faransiis ku hadasha qaybna Jarm waa saas aan maleynaya marka askartii baa u kala baxaysa Ethiopia kuwa taageersan federaalka iyo kuwa taageersan Ethiopia mida oo hal luuqada ah waxaa badan marka 99% boqolkiiba 95 aan idhaaho waxaa badan ummadaha kale ee raba federaalka marka arrimahaasna way jiraan runtiina caawa intaan halkaa fadhiiso kama faalloon karo xaalka Ethiopia okay hay-adihii xuquuqda aadanaha qaylinaya Amnesty International Human Rights Watch sidoo kale warbaahintii reer galbeedka ee ka aamusnayd 40kii cisho ugu dambeeyay xaaladan ay cakirayd hadda waxay bilaabeen inay ka hadlaan qayba afmeer TV la soo geliyay waad aragteen haddii waxaana sii socdo Tigraygu markay arkeen dhibkii ku batay ee dhaqaalihii hoos u dhacay ee ay niman dhargeebay ahaayeen oo godobtoodiina arkeen iyo aayar iska daldasheen meeshana way wareejiyeen kacdoonkan iyo mudaharaadkan iyo qorigan lala ordayay lagala hor imanayo ogaada hadda qori baa ku xiga lagala hortegi doono kuwaas waxa hadda laga cabsanayo oo caalam ka baqaya waxa weeyaan nimankana mudaharaadaya balaankoodii koowaad weeye si nabadgelya inay ku helaan xuquuqdooda qorshaha labaad waxa weeye gacan baa kaa celisa man to man meel ku qorta hadda ma sheegayaan laakiin kolley xogta waanu helnay Ethiopia bahasha la yidhaa dadkan hadda laysku yidhaa isma hori doonaan marka aad baad umahadsantihiin intaasaan kusoo koobaynaa wixii soo korana dib ayaan ka wada soconaynaa marka waxaan leenahay waa maaragtay wixii ka dhana xuquuqda aadanaha waa kasoo horjeednaa waxaan taageersannahay maaragtay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha waxa alla wixii gaboodfala ee ka dhana xuquuqda aadanaha runtii ma soo dhaweyneyn waayahay marka waad mahadsantihiin intaas ayaan kaga baxaynaa guul baan idin rajeynayaa
مسكين الله دري توبي هدي الله دري حاجة سوء وياي وهاسيه جوحة ويه هاسيه ويه هالجنكا مرحلة دي اللي وجري حل جابي تلمامي ساعة نكى جرانا يا جران مركا وإنه ساعة إن شاء الله خير كهلا شقيو دماتين وحان سور رجينا عافمات قد ما سنتي